madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta kormeeray shaqada guddiga dib u habeynta dastuurka maamulka galmudug iyo kii ahlu sunna. Madaxweynaha ayaa warbixino ka dhageystay xubnaha guddigan waxayna faahfaahin ka bixiyeen halka ay shaqadu marayso. Kormeerka madaxweynaha iyo waxyaabaha la isla soo qaaday waxa warbaahinta kaga warbixiyay Abukaata Bashiir Xaaji Yuusuf oo kamid ah guddiga dastuurka. Isku dhafka labada dastuur ee dawlad goboleedkii hore ee galmudug iyo dawlad goboleedka gobolada dhexe ee ahlu sunna oo jamaaca loo tirin jiray waxaan hawshan ku jirnay hadda laba guddi oo ka kala socda labada xeerdejin hore ayaa halkaan iskugu yimid oo nu bandhigaynay hawl ay soo qabteen qareenno maaragtay qubaro ah oo ku taqasay dastuurka samaynta dastuurada hawl ay ka soo shaqeeyeen oo ay isku soo dhafeen labada dastuur ee labada maamul goboleed ee hore ay jiray oo hadda noqday dawlad goboleed ku midoobay dawlad goboleedka galmudug ayaan wadnay ilaa Khamiistii meel fiican ayayna noo maraysay madaxweynuhuna wuxuu noogu yimid inuu ogaado halka ay sida wax u socdaan iyo meesha marayno iyo wax caqabada haday naga hor yimaadeen wuxuuna noo sameeyay maaragtay oo nala dardaarmay dhiirigelin ayuu noo sameeyay wuxuuna noo sheegay inaan annakana loo xaniban yahay guddigeenan isku dhafka ah marka waxaan ilaa hadda ka soo shaqeynay cutubka koowaad ee mabaadiida guud mabaadiida asaasiga ah iyo cutubka labaad oo ku saabsan xuquuqda aadanaha waxaan kale oo isla fiirinay cutub kale oo ah dhaqaalaha marka meel fiican noo maraysa aadaanan maaragtay ugu faraxsanayn inuu noo yimaado maxaa yeelay dhiirigelin iyo dardargelin inaan ku samayno howlihii ayuu tani noo horseedaysaa booqasho. waxaa jira guddiyo kale oo ka mid yahay guddiga isku dhafka ciidamada kuwaas oo wali ka doodaya sida la isugu dari lahaa ciidamada ahlu sunna iyo kuwa maamulka galmudug iyo keenitaanka ciidamada amisom ee galmudug. Nafis Xirsi Maxamuud, Universal TV, Dhusmareeb.